السلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كان قد ونسان أما نجي سوا حكيم يري أوفيشال فضل جنان كذا كل عشبته حنكعد سنة سبسكرايب هنا ده هديت جنبلالك فروتيت دع كليك أورا مركز وسيل وسوق وسوق جارو متى كلا كعسين وحتى إنا ناسي شير كريسيد أصحابتها دوني ده فين كل جبتو سيجار اسمه خالك إسلام مركو سوق جار سيفا بس نوع عاوسي عاو كله توا هبنتي مع سوق جلس هبنتي مع سوق جلس ساوى أوكتين كله عاو قفبل ولقى يا ولقى دونا وهبنك بعلاش السكريفاي شافت مخص وحب لو ما كلا هرين كله واحد يوم وذا واحد كلا معه وما ماضي وين إيه عسيود إيه بس بتبدل كبدنا مر بعدين عشاقينش مر إسلام مر قال ديش ماما ما يون بوم سيدا وذا جنسة كله كلبير إيسا صارت أيام ننتوس دونا إيه واحد ليسو كله خابك ولا بسنته عم لك حرنته مركا إيتيت هرت إنه ومن مستير كرتين وعم كلها سي حواي أنت لو قاعدة وماما مليون لك حرنته خابك ولا بسنته واحد يكهل دون كله وما داون دونا لكن مع كلها مرور بقى جنال كذا كعسبته سبسكرايب لايك شير سي جالسي أصحاب الدنيا دافين كل جوكتو ويح دعوة أم دون أقبت كومنتي نورين أما تسأله مرور بقى وكتح قلين دونا إن شاء الله بإذن الله الكريم بل أقول عنه موضوعين وعاو مليون ما أنت وحي تاجنته هرتو أيدو وقرنك يرى وذاتو يكستومو أي حدنا قرآن أخنيسة أما اللهم صل وسلم عليه وحياة بدن إيدهس كلك بل وأركي دوناي بل إلى فيري دنكوس على آله وصحبه وسلم حسبنا الله ونعم الوكيل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين الله ربي لا أشرك به شيء وان سلام يا دمان wax badan meesha uma soo galin kuween MMS waa quraanaysa كل سا wada jeednaba qaabkii u hadlayso ama u jeedaan kulleeto waxa la dhihi karaa lama dhihi karo qof gaal horta saas ah qof maanta Allahumma salli wa sallam alayhi iyo ducooyin ku furayso ma dhihi karno baad miye iskeenayaan waxyaabaha ay akhrinayso iyo labiska ay wadato mawduuca wuxuu taagan yahay taawi maya dad qofka islaamnimadu maxay tahay qofka bili aadanka ama dumarkaba inuu asturo curadiisa xafido laakiin ayada maxay taagan tahay ba kasi waxay taagan tahay inta la iska dhaqaa horta dumarkay ku dhiganta tan koowaad dumar fara badan ee faraha ku haysa iyo karbaashka la dhicaysa arikan ayada karbaashayna saa u wada jeedaan waxay taagan tahay ayadoo dhar la'aan ay intaas dhehaysaa misana islaamnimo ayay sheeganaysaa saa u wada jeedaan ama aad arkaysaan qof islaam ah diintu waxay amraysaa inuu is asturo dumar horta markuu yahay kulleed waxaa soo banaan inay ahaato wejigiisa iyo gacmihiisa inta hore saa u wadqaan intaas wey laakiin ayada maxay xiran tahay bal waxay adib in kugu celiya si fiican bal u fiiriya waa idin sheegay waxaan u soo galay YouTube-kayga maanta ajal xasaasiyaan ku soo duubay okay waxaan rabaa berri xilligan oo kale anaga hadda xilligan waa 11 oo 3 11 oo kulleed saa u wada jeedaan dharka ay xiran tahay qaabkii u labisan tahay waa u jeedaa dharna mixirnay waa garba garan ama nigis si ay wada garanaysaan kulleed dumarka magacyo kale u garanayaan bad ani sidaan u garanay nigis iyo garan ayay xiran tahay maxayna taagan tahay qaabka diinta iyo akhrinaysa salliga nabiga ducooyinka ay ku furayso iyo labiskeeda tolo miskeeni doona waa maya kulleed islaamnimadu oo horta waa shay qaali ah alxamdulillah ilaahay naga dhigay dad islaam ah aan ku shukrinayna bad dad ayaa qaar u fasirtay islaamnimada si kale oo sidii rabaan inta isku soo muujiyo ama u soo labistaan iska dhigayo sidii ilmo yar waxa la dhashay haddana diintii sheeganaya kulleeto waxaa u malaynaya arrintaas arrin aad iyo aad qalad u ah inay tahay kulleeto ficilada ay samaynayso maanta ma dhihi karno qof yar waaye oo canug yar waaye ama gabar yar weeyo hadda soo bixayso adduunkaa qaaday lama dhahayo waa qof cimrigeeda tagay almost 50 kusii dhowda saa u wada jeedaan miyaa la dhihi karaa qofkan dad ma laha miya ehel ma laha arxan ma laha qaraabo ma laha war wax qof yar xataa u danqado oo ehelkeeda hadduu rabo kan u shisheeye ha noqdee oo cista miyuusa jirin qof maalin walba sidaan taagan doraad waxaan arkay ayadoo oli iyo qashin ismarinayso saani ka shidantaa dhehayso dabcan kilibkaan waa soo qaadan doonaa biidnillahi alkariim laakiin kan hadda taagan miyay dhici kartaa qof weyn ee maamo ah maanta la dhihi kara canugeeda daatiyaas kusii dhow oo saan u dhaqmaysa
oo dhehaysa haddana islaam ma ah marna iska sheegata kristana ah dhehaysa mar diinta waa ka baxay diinta waa soo galay kolleeto kuma dambaabi karno wixii tahay ilaah baa naga garanayo ilaah baana daalacdo quluubaha bini-aadanka baad qaabka aan uga jeedno miyaa la dhigi karaa waddo islaamnimo ayay haysaa su-aashu waa maya kolleeto qof saa u jeediin qaabdarada edabdarada ay ku dhaqaaqayso ma aha qof weyn ee maanta la dhihi karo qaababkaas ama waxyaabahaas ayay samaynaysaa waa qof maamaa maanta haddii gabadheedii tahay xaawabaay waa las dhihi lahaa dhibkaana jiro laakiin dhibka jiro waa qof weyn oo da ah maanta heerkaas ayay u dhaqaaqday miyaa la dhihi karaa bal waxyar dib a idinkugu celiyo kilibki bal hoos ila fiiriya aan daawano ka bogasho wacan jirka oo waxaan isaga saaraa qiiqa iyo dhididka iyo faadkaan ku jaraa marna waa isku nadiifiyaa berri waa isku nadiifintii cajaladaas isku nadiifinta berri ee geedkan lagu soo waxaynayo yuu ku dhaafin baan ku iri yuu ku dhaafin soo dhawow gudhaha Soomaaliyeed saa isu nadiifisaan waxaad jeceshiin ragga inay isu dhaqdaan isu nadiifisaan anigu jikadayda saasay nadiif u tahay wataasaa jikadayda kiliinkaas ah kolley saa wada arkaysaan ama daawanaysaan waxay leedahay dumarka si isku dhaqo ayaan barayaa kulleed waxay karbaash kala dhicayso waa dumarka jawaabtu waa xaggiina idma dhahayo inkama hor dhacayo usha awadatiin horteeda ma istaagayo waa in sii dayn doonaa laakiin sabab ay ku keentay maxay tahay ujeedadeeda miyaa la dhihi karaa maanta qofkan wuu waalan yahay ama maskaxiyan xoogaay waa waxbaa dabacsan miyaa la dhihi karaa qaabkay u hadlaysay hadladeeda markaa aad fiirisid ma isdheesid xataa hal habeen ayaa meel xanuuntay ama meel yar ayay la-da misana qaabkay u dhaqmaysa waa ujeediin miyayse dad lahayn kolleyto dad bay leedahay laakiin waxaa u malaynayaa la kari waa inay noqotay ama qof go-aan laga gaaray mar horeba ee noqotay beledkaa gashay hore u socon la dhahay adii ilaahaada kolleyto waxbay dhashay dabcan qof maamulta jiro da-daa jiro ee la dhahayo olad la-aan ma aha walaal la-aan ma aha ehel la-aan ma aha la dhihi karaa hooyo aabba waa dhinteen laakiin ehelkeedii kolleyto wax ka nool way jiraan waxaan dhihi lahaa aan kula dardaarmayaa in iwaaniyaan wax u sheegaan haddii xanuunsan tahana ii celiyaan kolleyto maskaxiyan haddii qofka jiran dhakhaatiir badan ayaa jirta maskaxiyan maanta lama dhahayo yani waddan africa ayay joogtaa ee maraykanka ayay joogtaa waa wadamo aada u hormaray ayay taagan tahay marka waxaan dhihi lahaa haddii xanuunsan tahana xanuunka horta ilaaha ka qaado ilaahay ha soo hadeeyo ilaahay ha hanuuniyo qof weynoo maanta sida u dhaqmaysa weligii maan arkin balse hadduu xanuunsan yahay qofka isbitaalaadaa jiro mudarasaadaa jiro quraansaadaa jiro qur-aanka kulleeto waa daawo sidaan wada ognahay marka inkuma sii dheeraanaya waxaan leeyahay jawaabuhu waa xaggeena commentigina u reeba salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala